munaasabadani saaka subaxnimadii hore ka qabsoontay barxadda dugsiga sare ee uu yahay magaalada Boorama ayaa daarnayd mid lagu maamuusayay ardayda sanad dugsiyeedka 2022 kaalmaha hore ka gashay imtixaanka teeramka koobaad ee sanad dugsiyeedkan waxaana munaasabadani ka soo qayb galay maamulka macallimiinta guddoonka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal dareenka shucuurta ardaydii imtixaanka kaalmaha hore ka gashay ayaa wajiyadooda laga dheehanayay guusha ay ka gaadheen imtixaanka teeramka koobaad arday kasta oo dadaal ka muujiyay imtixaanaadka dugsiga sare ee Ubaya ayaa helay imtixaan waxbarasho oo bilaash ah sida uu sheegay maamulaha dugsiga sare ee Ubaya Professor Mustafa Maxamed Allabari waxaana uu halkaasi uga hambaliyay ardaydaasi kaalmaha hore ka gashay هذا دكسي سرى ترى الأرض اللي جت هو كم بقول إيه أفرتن أرضي أو ويل إيه قبل يسكو جرا لبيه توم فصل حاجة قبلها يكوي لان لبيه توم فصل الله حاجة قبل ويل شيء كوي لان فهمتي ودكسي إسلاجهم ويل شيء إيه قبله ترى هان كون إيه بقول إيه أفرتن كاسي بقول إيه سداد أرضي وفري العقل المقال هذا بقول إيه سداد الله واتن كدفته $2,160 ayaa gudoomiye bulshada dib nooga noqdo bishii oo runtii haddaan dhigan lahayn suulka wuxuu qaban lahaa waa dugsiga sare kali markaan ka hadlayo $2,160 haddaan bishii dhiganayo 12 bilood dhiganastaan haddaan ku dhufto waa $23,760 maalinta iskuulka la gelayo haddaan $23,760 ka haysan lahaa waxay noqon lahayd wax weyn oo iskuulka ku qabto waxaan sa ka door biday $23,760 iskuulka u haro oo kuraas iyo siisto wax 108 arday oo wax ku barta ayaan ka door bidnay oo iyaguna isku anfaca waalidkoogana mustaqbalka ku anfaca anagana wax kala deeno qabo way noo soo duceeyay ilaada maxaa ilaahu bal khayr si kuwi bariga wax baray inta ma naga baxaylasan wax kala dad noo qabo weydaan inta in aadna tirahdaan dugsiga dhexe tirada dhigata maxaa waa 1,760 arday 300 oo arday baa free ah $10 waa laga qaadaa $3,000 ayaa bulshada kaga noqdo dugsiga hoose dhaxana bishii hadii 12 bilood lagu ruso waa $330,000 weey labada hadaan isku geeyo $56,760 iyo way ibn kacab dib ugu calisaa bulshada waxaad noo sheegtaan muasasooyinka jira ee waaweyn ee ganacsiga ah 56 dib ugu calisaa bulshadeeda waa qaliil waxaad ogtihiin oo taa dheer oo wasaaradda waxbarashada maalin lagu jaayisad lagu siinay inay noqoto wasaaradii ugu fiicneed cashuur bixinta dalka ya cashuurta bixiya macallimiinta wax dhigta dhamaantood ama public hadana ama private hadana baa maxay ay noqdeen wasaaradda waxbarashada ugu maxay fiican cashuur bixinta haddii cashuur la yiraahdo waxbarashadu qaybteeda ka qaadanaysa haddii baahiyaha guud ee la sheego sida abaarihii ka dhacay dalka dhibaatooyinkii duufaanadii ka dhacay qaybaha ugu waaweyn waxbarashada ahaayeen waxaan u sameeynaa PhD midhan baa nagu jirtay oo rag fara badan maanta maxaa ay master midhana agaasimayaaliyo waxay noqon lahayd wax badan waxaan door bidanaa runtii oo u joognaa inaanu anagu shidano laakiin kuwana shidanaya idinka aad noqotaan oo dhamacda naga baxaysa idinka wax ku noqotaan macallinka waa maxaa waa dabka shidmaya ha u qaadana macallinku maxaa ay waxbar halkan meel ka aanu garanayn laakiin waxaanu garanaynaa sidii wax la noo soo baray inaanu anagu wax barno waxaanu garanaynaa sadaqatu jaariya inay ka mid tahay cilmi aad qof barto oo ku intifaaco lagu intifaaco waxaan isleenahay dhakhtarka aad wax soo barteen ee Ilaahay ku anfaco bulshada u duceynaysa qaybaad ku leedii man isleenahay waxa lagu soo diray ka adkow jaayisada qaar la siinaya adiga maxaa ku diiday in lagu siiyo qaar baa wanka gal oo free ah ardayda form 4 maanta ah qaar baa form 1 markay ka bilaabay arday kasto maxaa wanka gala free baan uga dhignaa
qaar baa maalintii ay foomka soo galeen ilaa maanta aan laga bixin dadaal xaaji Cabbaas waa gaari karaa wana dhaaf karaa waxaan hubaa hadda waxaanu bixinaynaa semesterkii dhexe jaayisadiisi كوين مركان بحنا قدومي ونقدر سوق يبقى كوا ما أنت سنة كوا أنا هين هالنقطة إن شاء الله وهالكاد ذلك كسي والله إن شاء الله تعالى خير بندير رجالية إلى سبحانه وتعالى هاي نوام فعو وحين برنا gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Mudane Nuuruddin Muuse Cali ayaa isaguna halkaas uga hambalyeeyay ardaydaasi dadaalka xoogan muujiyay waxaana uu halkaas uga diray dardaarno kala duwan iyo duceys xambaarsan aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka dugsiga macallimiinta juhdiga dheer ay u galeen inay waxbarashadiina kafaalo qaadaan aad baan ugu mahadcelinayaa waalidiinta idinku tabcaya ee waqtigoodii iyo hantidoodii iyo juhdigoodiiba gelinaya inaad adigu wax noqoto waalidka adiga abaalka ma rabo laakiin wuxuu jecel yahay shakhsiyadaadu inay jirto macallinkaagu waa la mid maamulka dugsiga iyo wasaaradda waxbarashadana waa sidoo kale jazaakumullahu khayran jira oo jooga oo noolaada oo dadaala ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin sharaf lagu gudoonsiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanka teeramka koobaad kuwaas oo iskugu jiray inamo iyo gabdho Axmed Diriic Iltire wararka warbaahinta Awdal Media Group magaalada Boorama